iyadoo ay wax ka yar 2 bilood inaga xigto waqtiga ay qabsoomayso doorashada Somaliland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xasaasi ah xisbiyada ku tartamaya doorashadani oo kala ucid kulmiye iyo wadani ayaa olole ugu jira sidii ay u soo kala jiidan lahaayeen taageerayaal ka caawiya in mid kastaba uu ku guuleysto doorashada madaxtooyada ee la filayo inay qabsoonto 13 bisha November waxaanay olole hordhaca ka bilaabeen gobolada dalka iyaga oo furtay xafiisyo kala duwan oo degmooyinka iyo gobolada dalka ku yaala xisbiyada siyaasadda ayaa go'le orad ugu jira sidii ay u soo kala jiidan lahaayeen siyaasiyiin mug iyo miisaan ku leh oo cudud iyo caqliba ku soo biiriya xisbiyada qaranka ha noqdeen siyaasiyiinta iyagoo aan xisbina haysan iyo siyaasiyiinta salugsan siyaasadda xisbigooda sidoo kale xisbiyada qaranka Somaliland ee ku loolamaya doorashada ayaa waxay soo bandhigeen barnaamijkooda siyaasadeed ee lagu dooran doono 5 sano ee soo socota marka laga reebo xisbiga ucid oo isagu sheegay inuu dhawaan soo bandhigi doono barnaamij siyaasadeedkiisa doorashadani ayaa waxay dadka soo xasuusinaysaa xifaaltankii iyo xamaasadii ay lahayd doorashadii tan ka horeysay ee madaxtooyadu taasi oo la qabtay sanadkii 2010 isla markaasina ay ku loolamayeen xisbiyada kulmiye ucid iyo udub oo iyadu saaxadda siyaasadda ka baxday doorashadani haatan laga naawilayo Somaliland ayaa waxa ku tartamaya musharaxiinta kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga saaxadda siyaasadda ku cusub ee wadani halka madaxweyne ku xigeenna uu ka dhigtay Dr. Maxamed Cali Cabdi xisbiga kulmiye ayaa isagana waxa madaxweyne uga sharaxan mudane Muuse Biixi Cabdi oo raba inuu markii ugu horeysay ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee Somaliland halka madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici uu isna rabo inuu markii labaad ku guuleysto jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga kulmiye waxaanu xisbiga kulmiye raba inuu mar kale majaraha dalka u qabto xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa isna waxa madaxweynenimada u sharaxan mudane Faysal Cali Waraabe oo tiraba 2 jeer ku guuldareystay doorashooyinkii hore ee dalka ka qabsoomay ee madaxtooyada waxaanu Faysal Cali Waraabe markani raba inuu kursiga madaxweynenimada ku fadhiisto walow aanu Faysal iyo xisbigiisu soo xulan cidii ugu tartami lahayd jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbigaasi ucid balse waxa ay shaaciyeen in 23 bishan aynu ku jirno ay soo xulan doonaan cidda madaxweyne ku xigeenka u noqon doonta xisbiga ucid isla markaasina uga tartami doonta doorashada madaxtooyada ee la filayo inay qabsoonto 13 bisha November doorashadani dalka ka qabsoomaysa ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay dalka ka dhaceen abaaro baahsan walow ay dadku ka soo reeyeen abaartaasi haddana waxaad moodaa inay dalka ka jiraan caqabado kale oo ay ugu horeyso sicir bararka baahsan ee Somaliland ka jira haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland ayaa waxa ay rabaan inay doortaan hogaamiyaha hagi doona 5 sano ee soo socota balse sifa nooce ay dadweynahaasi ku dooran karaan hogaamiyahaasi waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa oo telefishinka caalamiga ee Saab TV wax ka weydiiyay cidda ay ku aamini doonaan inuu hogaamiyo dalka 5 sano ee soo socota iyo sifaha looga baahan yahay hogaamiyahaasi number 1 waa inaanu noqon hogaamiye ama madaxweyne lagu keeno caadifad ama qabaa'il ama jujub ee uu noqdaa mid bulshada reer Somaliland dooratay kadib markii ay ka dhex aragtay danaheeda waa inuu noqdaa mid u horseeda dalka iyo dadka horumar barwaaqo iyo bashbash iyo xasilooni waa inuu noqdaa mid aan waxa ummadda competition weynaan u gelin marka waxaan la hadlayaa dhammaan hogaamiyaasha dhammaan la hadlayaa ama madaxda dhammaan la hadlayaa وإنه هنتيدا أما واحد أمضى competition وقلنا وأجلا competition كأجلايو وإنه ترتن كأجلا سيدي ودلكيس يدلكيس وهو مرلا. دورنا يو هدي عدد كوي كم مر من وياه وده كادي لوجو قصبي ما ديره واحد تراني كدورنا سن دين تانو حكومة ده دين الإسلام كانو حكومة مركو دين تانو حكومة وتاو يلا وتاو يلا كتاب كإلهي السنة النبي قال يدخل حكومة يا كدورتا waxaan ku dooran lahaa in qofku hadii qof hogaamiye yahay waa qof dan weyn oo qaran lagu aaminayo oo mas'uuliyadda ummadaha kala gedisan ee wadankooda degan walaalaha qof u dhex noqonaya oo hogaaminteedii leh hawlkarnimadeedii leh cadaaladdeedii leh codkarnimadii wadanka lagu gaarsiinay fasaxadii leh isla markaana qof siyaasi ah oo fahmad wanaagsan leh
isla markaana bulshada waddanka iyo bulshada caalamkaba wax la qaybsan karaya oo fahmi karaya isla markaana mustaqbalka fog wax ka hilaadin karaya oo aragti mustaqbal leh oo inta bulshada markaa wada deganna ku dhaqaya sinaan iyo cadaalad ayaan anigu ku dooran lahaa qofka hoggaanka saddexda xusbi qaran hoggaanka lagu dooran kara waxa weeye qofka aqoontiisa aqoon mu leeyahay sidoo wadi kara marka aqoontooda marka eegto saddexda xusbi qaran saddexduba waa saddex nin oo soo aqoona oo marka aqoontooda diini iyo tamaadiba eegto waa isku mid kulley sifooyinka ugu muhiimsan waxa ka mid ah inuu horta noqdo hogaamiyaha dalkan hogaaminaya qof go'aan leh gudoomiyuhu hadii hogaamiyaha dalku hadii uu go'aan yeesho waxa uu ka bixi karaa caqabado fara badan Ali Maxamed Xuseen Ali Wacays Saab TV Hargeysa